qof waliba oo labadooda ka mid ah waxay u ahayd maalin qaas ah. Ruux kasta waxa uu muujinayay dhoolla caddayn iyo sidoo kale farxad. Waa isgarab istaageen, marna gacanta ayay is haystaan. Waxay muujinayaan in jaceylkooda iyo sidoo kale hadafkooda nolosha ay ka gaareen guulo muhiim ah. Labada shakhsi ee ku muuqanaya waa fanaanka Xariir Axmed iyo sidoo kale gabadha dunida uu ka doortay ee Xayaat. Waa bartamaha magaalada Jigjiga halka sawirada ay ku soo galeen. Gaari qurux badan ayaa gadaashooda yaala. Waxay muujinayaan farxadooda, waxay dadku u soo bandhigayaan sida wanaagsan ay isku jecel yihiin labadooda. Hase haatee sawiradooda caawa waxay qabsadeen baraha bulshada. Dadka ayaa siyaabooyin kala duwan kaga falcelinaya sawiradani. Inkastoo dadka qaar muuqaal ahaan hore aysan u aqoonin Xayaat, waa gabadha hadda u dhaxda fanaanka Xariir Axmed, ayaa dadka badi qaybta commentiga fanaanka waxay ugu soo qorayeen: waa saddexaysata miya, laba ayaan kugu ogeyn, aawo midii labaad iyo midii koowaad. Laakiinse sheekada taas way ka duwneed. Dadkuna waa ay ku wareereen in xaas saddexaad uu guursaday fanaanka Xariir Axmed, laakiinse waxaa la xaqiijiyay in xaaskiisii labaad ay tahay gabadhan, waana Xayaat qofka isaga hadda la sawiran. Laakiinse dadka badi ayaa durbo waxay u qaateen in fanaanka xaas saddexaad uu guursaday, balse waxaad ogaataa in xaaskiisii labaad qofkaan ay tahay, waana gabadhan lagu magacaabo Xayaat ee sawirkooda uu ku muuqanayo. Dad badan ayaa arrintan tuhun ay ka gashay, kuwa badanna shaki ayay ka muujiyeen in fanaanku uu saddexaystay mise waa midii labaad. Waa su'aalaha ugu badnaa ee qaybta commentiga loogu qorayay fanaanka Xariir Axmed. Hambaliyo ayaanu leenahay fanaanka Xariir Axmed iyo sidoo kale gacalisadiisa dunida uu ka doortay ee Xayaat.